أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha muslimiinta waxaynu dhexda uga jirnaa bishii barakaysnayd oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey, qur-aankiisana uu soo dejiyey, ummaddana uu ku waajibiyey inay soomaan. saa darteed insha allahu tacaalaa waxaan halkan ka soo jeedinhaynaa kalimaad yar oo kookooban oo ku saabsan bishaan barakaysan iyo wixii muhiim u ah qofka muslimka insha allahu tacaala. marka waa darsigeennii koowaad. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa inaad naftaydana uga faa'iidaysto, idinkana aad ka faa'iidaysataan. darsigeenna koowaad, bishaan sida aan wada naqaano wada ogsoonnahay waa bil Ramadaan. ilaahay baa ku magacaabay subxaanahu wa tacaala inay bil Ramadaan tahay. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. bishaan waa rukni min arkaani alislaam soomitaankeedu oo ilaahay baa inagu waajibiyey. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى آيادا وحي نوغو شيغيا صدح الرموت. أرنتا كوباد انت إيمان كالي ربي إيا الرسول رميسي وحكستو إن للرمية من نار رميسي أي الله سبحانه وتعالى وحليه هاي وحال إذكو واجبيي بشهر رمضان. waa waajib. shayga waajibka ah waxaa la yidhaahdaa waxa qofka haddii aysan daruuro ku qumin marnaba uusan ka gaabin karaynin, isla markaas ayada ahaa samayntiisana uu ajir ka helayo, tagitaankiisana uu dembi ka helaya ayaa la yidhaahdaa. marka saa darteed ba ilaahay wuxuu yidhi waa laydinku waajibiyey. waa qodob. waajibintaasi ma mid innaga keliya iyo ummaddan ku egbaa? allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay sidii ummadihiidii ka horreeyey loogu waajibiyey ayaa idinkana laydinku waajibiyey. cibaadaadka ilaahay uuna faray uu nagu waajibiyey qaar waxaa weeye macquulatulmacnaa, waxaan marka aada samayso wixii ka dhalanhayo ayaa la isu sheegaa. qaarna waa iska tacabudi oo waa hayru macquulatilmacnaa oo sameeya unbaa la yidhahdaa, wixii ka dhalanhaya laynooma sheego. laakiin soonka waajibinta laynagu waajibiyey ilaahi subxaanahu wa tacaala ulajeedka uu ka leeyahay buu inoo sheego. wuxuu yidhi lacallakum tattaquun, saad isu jirtaan ood alla uga baqdaan baa laydinku waajibiyey. macnaha waxaa weeye marka aan ogaano soonku inuu waajib yahay, marka aan ogaano in ummadihii inaga horreeyey lagu waajibiyey, marka aan ogaano inagu marnaba inaynaa ka tegi karaynin, baa waxaa weeye haddana waxaa laynoo sheegay wax aan ka faa'iideyno. waxaan ka faa'iideynaa waa alla ka cabsi. dhammaan waxa aynu raadinhayno oo waxaa weeye ummaddu ay u afxiran tahay oo loo sooman yahay, oo salaada taraawiixda loo aadayo, oo qur-aanka loo akhrinhayo, qofku waa inuu alla ka cabsi helo. alla ka cabsi markuu qofku helo, ilaahay uu ka boqo oo qalbigiisa iimaan uu galo, ayaa wuxuu faa'iidayaa qofkaasi naarra inuu ka badbaado, janno ilaahayna uu galo, cibaadadana uu sii badsado. marka soonka waa la inagu waajibiyey. mid innaga xaggeenna ka yimid ma ah, mid annaga aynu codsannay ma ah. allah jalla jalaaluhu ayaa waajibintiisa keenay. xigmadda uu ka leeyahayna waxaa weeye alla ka cabsiga inuu bato. waxaa jirtaa soomam oo bini aadanka ayaga waajibintiisa sababtiisa ay la yimaadaan, oo waxaa ka mid ah soomka loo yaqaano soomu nadarka.
qofku soonka uu ku nadiro inuu soonkaasi asal waxaa weeye soonkaasi qofka inuusan waajib ku ahayn, laakiin nadarka asagu qofku nadiro uu ku dhaarto ayaa soonkaa waajibinhaya. waxaa ka mid ah soomul kafaaraadka, waxaa ka mid ahaa soomka jazaa-u saydka, waxaa ka mid ah soomka fidyada xajka. soomamkaas oo kale qofku waajibitaankiisa sababtiisa asagaa la yimaada bini aadankii, laakiin midkan waa mid qofku uusan ikhtiyaar asagu u lahayn, marnana uusan ka baxsan karin oo ilaahay uu ku waajibiyey. sidoo kale sunnada nabiga sal slam wuu inoo sheegay min xadiidi cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala canhu. nabigu sal slam wuxuu leeyahay arkaanul islaamka, diinta islaamka waxaa lagu dhisay 5 shay. aasaaska iyo pillarska diinta islaamka ay ku taagan tahay waa 5 shay. 5taa shay la-aantooda islaamnimadu ma istaagayso qofkana umana dhammaystirmayso. 5taa shay marka waxaa ka mid ahaa bisha ramadaan oo la soomo, shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa wa sawmi ramadaan wa xaji ilbeyti oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam. 5taa shay waa 5ta tiiru islaam. soonku marka 5taasuu ka mid yahay. 5taa shay marka rukni ka mid ah samaynteeda qof laga rabay oo samayn waaya, wax cudurdaar ahoo shareecada islaamka ay ogolaatayna uusan ku qumin, waxaa weeye islaamnimadiisi waxay noqonaysaa mid dhiman oona dhammaystirnayn ayay noqonaysaa. haddii uu ka suga tagana gaalnimadiisa ayaaba caddaynaysa qofkaas inuusan muslim ahayn ayaa soo baxaysa. marka bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala uu inagu soo waajibo waynu wada ogsoonnahay, amarka ilaahayna waynu u wada hoggaansannahay. keliya marka waxaa la rabaa oon ku darayaa in aan ka faa'iidaysano bisha ramadaan oo wixii ay mudan tahay in la sameeyo aynu samayno, wixii aan mudnayn in la sameeyana aynu ka tagno oo aynu ka dheeraano. allah jala wajalaaluhu ayaa inagu soo waajibiyey, waa allihii ina abuuray, allihii waxaa weeye adduunyadan ina keena liyabluwakum ayukum axsanu camalan. sababta laynoo abuuray waxaa weeye cibaadaadka aynu samaynhayno iyo waajibaadka ilaahay nagu waajibinhayo, sida aynu ugu kala fiicannahay iyo sida aynu ugu kala dadaal badannahay iyo sida waxaa weeye aynu u hagaajin badannahay ayuu ilaahay inagu imtixaanayaa. ma aha waxa la fiirinhaya camalka laga fiirinhaya badnidiisa ma aha. saa darteed bishan ramadaan soomitaanka 30 beri aynu soonna keliya ilaahay kama fiirinhaya, wuxuu alla ka fiirinhayaa sida aynu u wanaajinno, niyadeenna aynu u wanaajinno, qur-aanka aynu u akhrino, salaatuleylka aynu u tukanno, adkaarta aynu u samayno, carabkeenna xumaanta aynu uga ilaalino. taas ayaa waxay tahay muhiimadda camalka laga fiirinhayo. ee keliya ma aha inaad cuntada ka soonto, keliya ma aha inaad maqribka marka la gaaro saambuus cunto, keliya ma aha inaad soo kacdo habeenkii oo suxuur cunto. intaas keliya muhiimaddu ma aha. waxaa weeye inaan ogaano soonku inuu waajib inagu yahay. thaaniyan in waxaa weeye aynu qurxinno si ilaahay hortiisa berri aynu noqonno kuwa ka gala albaabka loo yaqaana rayaan oo dadka saa'imiinta ahee sooman loogu keli yeelay keligoodna ay ka geli doonaan oo abaalmarinta goonida loo siin doono. si aynu u noqonno ayaa waxaa rabaa bishaan ayadaa sida dhabta ahee xaqiiqaday mudan tahay inaynu uga faa'iidaysano. taas ayada ahaan ilaahayna weydiisanaynaa, naftayda iyo nafsadiinana aan u dardaarmayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.